waxa markaa raba inaan sameeyo waxa isa siiya haday waxaan ka hadlaynay yani subhanallah scheduling iyo waxa qofka inuu leeyahay schedule markii aan ku darsado schedule-kayga kow calendar-kayga ku jirtaa labo alarm-kayga ku jirtaa sidii wa illaa aanan oga tagin. You know, human beings were forgetful. Shalay tal waxaan lahaa maanta igma dhaadhicsano laakiin waa intaas xasuusiya what are my goals. The other thing that iga dhaadhici and I caawisa business-kayga iyo you know waxa dhan aan isku wado reminders. Wow, you know what meel kasta wax baan ku qortaa. You can do it positivity, you know, what mindset, the brain, maskaxdan ilaahay na siiyo awood badan bay leedahay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabtay soo dhawaada muuqaal cusub. Maanta adana waxaan soo wadaa video kale martida waa ka aragteen videogii hore Ifraax Saudi soo dhawo Ifraax. maanta barnaamijkan videoga wuxuu ka mid yahay barnaamijkeeni dhiirigelinta soo maanta waxaan ka hadlanaa Ifraax ما شاء الله marka horeysa waa kuma santaa mar labaad yes oo muuqday maanta dhammaan sheekaysanayso waa weyn soo dhaweeyso soo dhawo waa dhawahay ma sha Allah so maanta waxaan ka hadlanaa procrastination of Somali waa la procrastination and what was it? Perfection. Yes, procrastination and perfection. Makahalana. Adiga de Somali ga khatarsan so noogu bedel af Somali. Procrastination your perfection. Procrastination waxa waaye markuu qofka markas wax kasta dib u dhiganayo. Okay. Biri baan sameeyay, biri daba baan sameeyay, biri daba. Sax. Perfection. Perfection waxa waaye dadka jecel wax waliba inay 100% saxan. Waa kaas. Maka ma jiro magac perfection or color. sentence. Okay, marhaba. May wa taas maanta taan ka hadlanaa perfection iyo procrastination. Sababtaan dooranay subject kaas waxay tahay because anigu laftigayga you know business badan baan isku wadaa Ifraax business badan baan isku wadaa laakiin my biggest enemy waa waxa weeyaan perfection one and the second one is procrastination. Waxa ugu adagna marka business aad leedahay qof ka dambeeyo ka daba shaqeynaya ma jiro. You're your own boss. Taas wax fiican baa la socota laakiin waxa aanad problem ku yimaada marka adigu inta ismaamushida oo aad lahaatid schedule ka soo baxday schedule kaas oo de shaqada dhan adigu ku sugayso marka you don't have room for procrastination laakiin marka perfectionist aad hid oo doonaysid inta wax kasta bad sida doonaysid inta u dhacdo wax badan baad dib u dhigi all the time because it's never perfect. So anigu inshallah waan nii sheegi doonaa waxaan sameeyo sanacam you know and procrastination kan isaga cisho ama perfectionist waan wala nahay laakiin there's ways around it. So taa waan ka hadli doonaa adigu Ifraax maanta sidee baa isku maamusharta because maanta you're your own boss maaha nakaama daba shaqeeyo marka maalintaada sidee baa and organization ku sameeysaa u plan garaysaa. So waxa ugu horeysa aan rabo marka hore waxa waa qofka labada hadda waxa ka hadashay procrastination iyo perfection marka hore waxa la fiiriyaa the root cause qof waxa laga yaabaa inuu isweydiinayo horta maxaa keeno annaga hadaynu nahay bil aadanka annagu intaasna loo sameeyay so in other words ina dareena ma aha pressure waya saan u ahay okay kulligeena waa wada nahay qofka maanta millionaire-ka billionaire-ka dhakhtarka kulligeena laakiin different degrees baa jirada kuwa dad baa ka sahlan kuwa kale si fiican so waxa waaye marka la kala saarayo waxa waaye qof waliba waxa waaye jirto si uu ku maareeyo looga hortago so su'aashaada dib ugu soo noqon aniga shakhsiyan sidee uga hortagaa sababtay tahay qof kasta haysto so saa uga hortaga waxa waaye waxa markaa raba inaan sameeyo waxa isa siiya haday waxaan ka hadlaynay yani subhanallah scheduling iyo waxa qofka inuu leeyahay schedule markii aan ku darsado schedule-kayga kow calendar-kayga ku jirtaa labo alarm-kayga ku jirtaa sidii wa illaa aanan oga tagin waxa kaloo sameeyaa haddii aanan wixii aan dhaha waa sameyna aan sameynin
maalinta naftayda ka soo qaada waa samar maalin kuna so sometimes ice cream aan rabtaa naftaadu yes waa ciqaaba naftayda okay ma siiya ice cream okay waa shaqadii ma qaban okay marka adiga ba isku noqdayba your own well yeah manager waka okay adiga inaad ismaamushidu waaye and sida maxaa kale buugga la dhaho Atomic Habits ma qanda akhristay waxay ku leeyihiin waxyaabaha weliga rabti inaad samaysid waxaad ka saartaa booska wax allaale wixii oo horta ka ahaa tusaale muhiimka had tusaale qof wuxuu rabaa gymka inuu aado iska soo rido culays haddii markuu gymka imaado miiskii ay saaran tahay chocolate bar qofka most likely wuxuu sameeyaa temptation so wuxuu ku leeyahay temptation kaas oo dhan ka qaad ka fogo okay so markaa sameynaysid task hadda aniga guriga dhexdiisa waxa igu yaala xafiis xafiiska markaa fariisto I know for sure shaqa qabanaya okay haddii marka aadan xafiis lahayn ama aadan samaysan environment dan way adkaanaysaa maalin ayay ku dhiibaysaa waarun taana waa sax because anigu dadkii la socday way ogyihiin ani waxa hurdada iga xun hurdadeedu habeen way yar tahay so wax waxaan sameeya anigu sariirteeda ama maqsinkeyga maskaxdeeda waxaan ku xiray intay tahay meeshiyaan seexanay maaha meel TV lagu daawado maaha meel buug lagu akhristo maaha meel telefoonka social media lagu jiro maskaxdeeda waxaan ku qufulay maqsinka markaan galo waxa weeyaan maqsinkaan seexanay so taana waxay igu kalifay because hurdadeeda xun maaha qof kastana waa intuu taana waxay nagu soo celinaysaa naftaada waa intaa baratid you have to learn yourself because adaad tihid qof always distracted adaad tihid dad baa jira very focused laakiin anu telefoonka haddaan qaado waxaan saran oo notification yar eeg 3 saacadood ku jira so waxaan sameeyaa telefoonkeyga waxaan silence baan ka dhigaa waxaan ka dhigaa mode work so emailadu ma soo dhaca no social media so naftaada waa intaa baratid limitkaaga waa intaa baratid taana waan kasii hadli doonaa but laakiin it's very important saatiri every space in your house waxay leedahay a meaning so adu waxaa ka hadashay waxaa tiri space baan leeyahay office so aniguna office baan leeyahay taana waa muhiim because hadaad tiraatid saaloogan ku shaqeynayno ma dhici karto saalooga waa meeshii lagu nasanay lagu nafisay fadhiga so maaha so allocating space ta kalena waxa weeyaan scheduling everything and dadkii la socdana way ogyihiin meel kasta iminka fridge-keega waxaa ku dhajisan sawarkasid planning grocery list day of the week waxa la cunayo and wax kasta waan qoraalkuna wuxuu fiican yahay because madaxaaga waxa ku dhex jiraba visual baa ka dhigaysaa so taana waa muhiim so wax kasta waan qoraa sanad kaste video hore baan soo dhigay 2021 dhamaadkeygii aniga laftigeyga isla fariistaa laakiin video baan ka duubay sanadkan laakiin sanadkii soo dhaafay baan ku noqdaa maxaan sameeyey what did I achieve goalskeygii ma ka soo baxay mise kama soo bixin haddaan ka soo bixin ama haddaan u dhawaa oon aan gaarin maxaan bedeli kari lahaa oo dhinacam that will make a difference right so list baan siiyaa goalsna waan siiyaa because noloshan waa 4 cisho waqtiguna waa bilaa macno waqtigu saa uma socdaa right ta kalaan sameynana waxaa time blocking wax la yiraahdo so anu mayhi qof focus I don't know maybe ADD like I cannot focus so waxaan siiyaa every 45 minutes 15 minutes break baan qaataa breakna qasab ma hadinta soo duubtid waxa waa telefoonkaan qaadan laakiin 45 minute aan fadhiyo waa shaqo so adaan video aan sameynayo waqti baan siinay iminka maanta markaa ay timaado waxaan ka eri 30 minute baan siinayna waa inta noloshiina saa u nadaamisiin adi kale procrastination badan baa iman shidaankuna wuu ku sheekeynay asxaabta waa kula soo hadli but you have to have a schedule so that's very important marka adigu waxaa tiri planning baa sameysaa so maaha so isbedel weliga macaankaa baa ahayd mise waxaa kuu kalifataa nacan businesska imika bilowday xagee ka timid fikrada scheduling everything or were you always like that su'aal fiican
generally yes markooga hore dadka qofka waxa iska organized okay dada ilaahay organization ku dhulaya yes laakiin skill setka ugu muhiimsan aan bartay waxay ahayd markii aan noqday community activist actually inta ganacsiga bilaabin okay this is why markasta aan ka hadlayo ganacsigayga dadkay dhahaan Allah sawa fiican tahay hebelo waxa dhahaa 10 years work aan sameynay community-ga has molded qofkaan maanta so marka waxa bartay intaana waxa daan raba inaan sameeyo intaasoo different initiative aan raba sameeyo busy that shaqeynayna full time khasab waxay noqonaysaa iska jooglaysid hadda 4 years ka ganacsiga ku jiray waxaan sameeyay a lot of personal development so hadayga ka hadlaysa sanadka markuu dhamaanayo so video waxa jiro Robin Sharma uu sameeyay waa about 8 minutes every year aniga daawadaan in the same video ku celisa every year sanadka soo dhow yahay every year because category uu ka hadlayo ko wuxuu ku leeyahay waxaad qoraysaa sanadkii la soo dhaafay wax allaale wixii ku hagaagay dan waxa isweydiinaysaa markii aad all targetkaaga aad samaysay ama hit garaysay and which environment aad ku jirtay noloshaada maxay ahayd mindsetkaaga muxuu ahaa dan su-aasha hadhowta waxa waaye sidee marka u hubin karaa sidaa hadda waxaan goalskaan samaystay goal baan ka hadashay saa u sameeyo markii aan waxaan sameynayay was the best time sidee marka ugu noqon kartaa environmentigii aan ku jirtay marka mindsetkii ugu noqon kartaa so every year waa sameeyaa so Robin Sharma haddaa googalaysan waa arki doontaan a yearly plan how to start the year strong baa la dhahaa sanad kasta mashallah no that's very important anu bas waxaan ku xiri lahaa and muuqaalka waxaan kusoo gabayn lahaa and waa muhiim inta and ama environment kiina hada u fiirsatiin dadka la socotiin dadka la joogtiin badankuna waxaa la yiraahdaa tell me who your friends are and I'm going to tell you who you are maha markaas haddaa la socotid dad waxba qabsanayeen oo schedule ku socon anigu waxa adduunyada ugu neceb yahay dadka laydka haddaa waqtiga because anigu schedule baan ku socdaa so haddaa anigu waqtigayga siinayn important value siinayn for me you're not valuable right so it goes both and it's also lack of respect sound arko and sunnana maaha waqtiga is very important markaas waxaan dadka markasta waxaan ka iraadaa badanka anu markaan habeen baa iska dareemaa daal ama discourage maaha waxaan daawadaa videoyaal dhiirigelina motivational videos baan daawadaa marmar waxaa dhacda intaan videoyaashaan duuba dib aan ku noqdo because it's waxa insaanka qofkan human beings were forgetful shalay taal waxaan lahaa maanta igma dhaadhicsano laakiin waa intaan is xasuusiyaa what are my goals the other thing na iga dhaadhici and caawisa businesskayga iyo waxoo dhan aan isku wado reminders wow meel kasta wax baan ku qortaa you can do it positivity waa mindset the brain maskaxdan ilaahayna siiyo awood badan bay leedahay oo waxa laga dhaadhiciyo so inshallah xagga baan kusoo gabeynaa asxaabtay xaggee laga heli karaa dana ifraax maasha allah waxaa laga heli karaa hadkoo Facebook hadday noqoto ifraax sacuudi xasan masha allah business pagekayga ifraax essential Instagram Snapchat @ifraaxott masha allah and YouTube ka teamkayga aniga Opulence Empire Somali masha allah all the links austan soo dhigi number ma leedahay ma u dhigan my numberkayga ma bixiyo okay wala soo wicii masha allah marxaba jazakallahu khair hadana inta noo timid insha allah waa noo soo noqoni doontaa kulliba dad badan baa ka faa'iideysan and knowledge kaaga wakas insha allah asxaabtay waa inoo mardhow adana weli subscribe ahayd channelkayga fadlan subscribe ku dhufso kusoo biira channelkayga intaana iloobina baatigan asli boutique baa ka heli kartiin numberkay waxoo dhan oosaan nii soo dhigay maasha allah anigana maanta kaygaan qaadanayaa masha allah okay salaale insha allah waa inoo mardhow maca salaama